gudoomiye muuse liiska aad shaaciseen xalay waxaa ka maqnaa xildhibaankii laga soo doortay beledweyne la taliyaha amniga madaxweynaha Faad Yaasiin Xaaji Daahir kursigaas maxaad u reebteen? afarta kursi oo ku sheegay ka mid yahay process baa ka dhiman guddigaana u fariisanaya arrinta. maxaa kursiga ka khaldan? waxa ka khaldan anaga wax aragtay haddii wax laga sheegi karo laakiin shacabka inaad la wadaagtaan soo ma ahayn. shacabku aan la wadaagnay waaba waxaan nidhi process habraaca ka khaldan dibna noocaasi maaragtay loo saxito. laakiin xogtaan helayna waxay ahayd in sidii caadigeed lagu doortay Hirshabeelle ay soo ansixiyeen oo soo meelmariyeen cid ka cabanaysana aanay jirin. adigu xog baad haysa laakiin anagu meeshaan joognay kolley waxyaaba khaladaad way jiraan mana aha kuraas keligiisa kuraas kale oo badan baa jira marka sidaan kuu sheegay iyadana waa la saxayaa guddigaa saxaya waa dhamaanaysa. laakiin inaad ku saxdaan intay doorashada socotay soo ma ahayn ilaan kuraasta kale laga soo cabanayay waa la saxayay. alcamuum haddaan hadda saxno iyo haddaan doorashada ku saxno waa kolley guddigay taal guddiguna shaqooyin badan buu ku jiray intii badneed hadda qaar baa weli banaanada ku maqan marka dad hawl ku jira kuraastii la qabtay hala yimaado hala soco lama oran karo laakiin hadda jaanis baan haysanaa. gudoomiye wararka qaar waxay sheegayaan in madaxda maamul goboleedyo kale iyo xafiisyo kale ay cadaadis kugu hayaan oo ay kuran yihiin kursigan waa inaad ka reebtaa liiskaad shaaciseen. aniga nin odayaan ahay cadaadis ma saari karto wixii sax ah oo doorashadaas lagu sixi karo waa lagu saxayaa marka hadaladaasi kutarkutaanka inaad weydiiso xaruma laha. gudoomiye waxaa kaloo soo baxayay in dib aad u dhigteen liiskan aad shaacin lahaydeen oo waqti ay qaadatay oo uu jiray khilaaf dhexdiina khilaafkaas maxaad nooga sheegi kartaa? maya aniga waxaas ma ogin waxaad ognahay